muhiimsanaa waxaa hadda carabka ku furtay saaxiibka xildhibaan Axmed Gubuuje oo ay kamid ahaayeen qodobka caruurta dibadda moogtahay laga keeno iyo cilintooda iyo qodobka sagaalada sheegayay mas'uuliyadda waalidka oo runtii aan aad u adkaynayo waxa wareegaya inay tahay maxaa heeday mas'uuliyadii aynan hayn waalidkii waxaan u gudbiyaa xeerka sida hadda ka muuqata soo jeedinta ay isku jeediyeen guddigu waxay yiraahdeen waxaan ku jeedinaynaa xeerka xuquuqda carruurta oo aan ku deynina anigu waxaan qabaa fikir ahaan xeerka bixinta saxda ah in loo daayo xeerka daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda carruurta isla loo daayo maadaama daryeelku iyo marka laga hadlayo ilaa moogtahay ilaalinta waxa horeeya daryeelka haddii daryeel la helo ayaa la ilaalin karaa marka xuquuqdii marka ilmaha amba carruurta marka waxaan soo jeedin lahaa xeerka daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda carruurta in lagu daayo iyadoo qodobka shanaad ee xeerkana uu sheegayo xeerkan inuu waafaqsan yahay dastuurka qodobadiisa 10aad faqadiisa 2aad iyo qodobka 19aad oo sheegaya daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda ka hadlaya marka maadaama qodobka shanaad ee xeerkan uu sidaa dhigayo waxaan oran lahaa soo jeedinta guddida kuma waafaqsani in xeerka loo daayo sida dastuurku sheegayo oo maxay laga dhigo xeerka daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda carruurta loo daayo saasaan fikrahan soo jeedin lahaa waxaana meesha marka ka baxaysa arrimo badan oo ka mid yihiin maxay haddii xuquuqda carruurta oo la yiraahdo daryeelkii baa meesha ka baxay marka waxaynu ilaalinaynaa waxa weeye xuquuqdii carruurta ayaynu korjoogtaynaynaa xeerkii ilaalin lahaa ee dhowri lahaa ee sugi lahaa ayaynu rabnaa inaynu ansixinaan baynu wax samayno marka haddii la yiraahdo marka xuquuqda de waxay noqonaysaa daryeelkiisna meesha uu ka baxaya marka aanu taasaan soo jeedin lahaa xeerka magaciisa in laga dhigo xeerka daryeelka iyo xuquuqda carruurta in lagu daayo si loo waafajiyo dastuurka qodobadiisa 10aad iyo 19aad aan sheegay iyo qodobka shanaad ee isla xeerkan ku jira waxaan kaloo u gudbayaa qodobada ay ka mid ka yihiin qodobka 18aad oo kale horta guud ahaan marka laga hadlayo intaan qodobka u gudbin dhinaca erebixinta marka laga hadlayo khalkhal badan baa ku jira xagga erebixinta tusaale ahaan oo kale iminka marka laga hadlayo tacadiga ku salaysan jinsiga marka la leeyahay marka la macnaynayo tacadiga ku salaysan jinsiga marka la macnaynayo amba la akhriyo cibaaradaas amba statementka la akhrinayo de waxa ku jira ereyo badan oo xataa qaarkood aanan af Soomaali ahaan lagu dhawaaqi karin ayaa ku jira oo tacadiyada ay ka mid tahay meesha lagu sheegay marka in ereyadaas moogta erebixinta la bedelo oo erey munaasib ah Soomaaliga ku munaasib marka lagu bedelo waxyaalaha kale ku jira waxa kamid halka tacadiyada jinsiga marka laga hadlayo ku salaysan xadgudubka ninku uu geysto xaaskiisa marka xadgudubku waa xadgudub nooceeya in la yiraahdo xadgudub kasto oo ka dhana shariicada islaamka oo uu geysto ninku xaaskiisa in la yiraahdo ayaa qurux badan waxa kaloo kamid ah warbaahinta waxyeelada leh ayaa kamid xagga erebixinta markaynu ku hadlayno xaaladaha badan bay yaa ku jira xagga erebixinta runtii ma rabo inaan markaa ku sii tiyaagalo ama aan ku sii dheeraado inaan dib ugu noqono xagga mugta erebixinta warbaahinta waxyeelada leh marka leeyahay waxyeelo de waa erey culus xagga Soomaaliga laakiin waxa ka wanaagsan in la yiraahdo saameynta warbaahinta saameynta leh in la yiraahdo ayaa amba mugtay laga dhigo waxa kaloo qodobka warbaahinta saameynta marka laga hadlayo ku jira waxaan moodaa warbaahinta elektarooniga ah amba ku qoran oo waxyeelo ku ah ilmaha marka waxyeeladii ilmaha u geysanaysay waxa markiiba moogta xagga hore la soo dhigay afaafka hore badqabkiisa caafimaadkiisa horumarkiisa marka waxa wanaagsan ilmaha badqabkiisa caafimaadkiisa waxa ka horeeya akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ka horeeya marka ilmaha in la soo horeysiyo warbaahin kasta oo waxyeelo ku leh ilmaha dhaqankiisa akhlaaqdiisa iyo jiritaankiisa akhlaaq ahaaneed ku leh markaas caafimaadkii badqabkuna marka ay imanayaan marka waxaad moodaa xeerku in inta badan uu ka durkay amba moogtahay laga fogaaday in lagu xuso
akhlaaqda maadaama waxaanu ka hadlaynay tahay mugtay awlaad yar yar in mar waliba la yiraahdo tusinta iyo barbaarinta akhlaaqda in lagu xuso ayaa muhiim ah inta hadaan ku dhaafo xagga erebixinta waxaan u gudbayaa qodobka 18aad ee ka hadlaya xaqa islaamnimada marka xaqa islaamnimada baalan ku qoran laakiin sida saxda waxa weeye Soomaaliga in la saxo xaqa islaamnimada in laga dhigo halkaas af Soomaalihan xaqa islaamnimada marka laga hadlayo caruurta xuquuqda islaamku si aad u badan tahay waxaynu isku koobi karnaa maaha laakiin anu waxaan ku dari lahaa halkaas laba qodob ayaa ku jira laakiin farqad saddexaad ama qodob saddexaad baan soo jeedin lahaa in lagu daro ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaxlo labadiisa waalid waayo dhaxalku waa xaq uu siiyay ilmaha yar islaamku siiyay way ilaahay baa quraanka wuxuu ilaahay ku leeyahay yusiikumullahu bi awlaadikum lidhakari mithla hadil usiyani marka waa xaq inuu ilmuhu dhaxlo labadiisa waalid waa xaq islaamku siiyay way marka waa inuu lagu daraa ilmo kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu dhaxlo labadiisa waalid qadaas intaasaan ka gudbiyaa waxaan u imanayaa farqada 29aad iyo 30aad labadaas farqadood 29aad iyo 30aad waxaad moodaa